lix calaamadood oo digniin u ah in ay ciladi ka jiri karto beerka. Salaamu calaykum. Soo dhawaada akhyaaray. Maantana waxaan rabnaa inaan ka hadalno calaamadaha digniin u noqon kara in ciladi ay ka jiri karto beerka. Beerku waa mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan jirka, gaar ahaanna waxay qabataa inta badan in ay sunta jirka ka saarto. Mararka qaybtood waxaa dhici kara in beerku ay ciladi ku timaado dabadeedna ay shaqadii joojiso. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno calaamadaha digniinta ay dhici karto qofka hadduu isku sii arko in laga gaari karo in beerku uu shaqada uusan joojin, lagana daweyn karo. Calaamadahaas waxaa ugu horeeya in xanuun soo noqda oo dhinaca caloosha uu ka dareemo, gaar ahaan dhinaca midig ee caloosha oo dhinacaasi uu beerku uu ku jiro. Calaamada labaad, oomateedka oo qofka ka xirma oo cunnadu u soo dhadhami weydo, iyadana waa calaamad muhiim ah oo qofku ay tahay inuu attention ka qaato. Calaamada saddexaad, mushkilad dhanka habdhiska dheefshiidka oo qofka ku soo noqda, sida caloosha oo qofku uu ka dareemo calool majiir ama casiraad wax loo yaqaano, iyo sidoo kale jirka oo midabkeedu uu jaallo isku bedelo. Intaasba waxay tilmaam ka bixin karaan in ciladii ay ka jiri karto beerka. Marka sidaa darteed iyadana waxaa loo baahan yahay calaamadaas haddaad isku aragtid inaad hoosta ka xariiqdid oo attention-kaagu u taagan yahay. Calaamada afraad, madax wareer iyo matag joogto ah. Calaamada shanaad, midabka kaadida oo isbedela xitaa hadduu qofku biyo badan aad u fara badan uu cabo. Waxaan ognahay haddii biyo fara badan uu qofku cabo in kaadida ay caadi u muuqanayso muuqaalkeeda, laakiin markan xataa isagoo biyo badan cabay qofki ayaa wuxuu isku dareemayaa kaadidii inay isbebedelayso, kalarkeedu uusan caadi ahaaneyn. Calaamada lixaad ee ugu dambeysa, dareeraha jirka dibaddiisa u bixi jiray oo yacni sida lagu garanayaa dareerahaas dibadda u bixi jireen oo yaraada, sida kaadida, qofkan kaadidiisa yaraatay, iyo sidoo kale dhididka qofka dibadda u saari jiray oo yaraada oo jirka uu ka soo bixi kari waayo. Intaasba waxay iyadana tahay calaamad muhiim ah oo loo baahan yahay inuu qofku hoosta ka xariiqo. Marka guud ahaan calaamadahan aan ka sheekeynay oo aad la isku geeyo waxay u yihiin digniin muujinaysa in ay ciladi ka jiri karto beerka. Marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in baaritaan dheeraad ah qofku uu isku sameeyo. Markuu baaritaanka sameeyana ay ka soo bixi karto macnaha jawaabta inay ciladi jirto inaysan jirin, waxaana go'aan ka gaaraya dhakhtar. Waxaa loo baahan yahay inteena badan dadka waxay iska sahladaan xanuuno qofkii qabanaya oo mar dambe oo aan maalan waxba ama wax laga qaban karin, ama ay dhici karto in dhibaato xoog leh uu qofkii gaartay, inuu qofkii markaas u soo baraarugo isbitaalka yimaado ama dhakhtarkii uu la kulmo. Calaamado oo intuu qofkan marka calaamadahan markaad weydiisay intaad dareemaysa inuu waqti badan kuu sheego ayaa dhici karta. Haddii la weydiiyo isbitaal sababta u aadi weysana, yacni jawaab rasmi ah oo lagu qanci karo inuusan hayn bay u badan tahay. Marka waxaa muhiim ah oo mar walba annaga dadka kula talinaynaa in haddii qofku uu xanuun dareemo, marka ugu horeysaba uu iska gaaro inta ugu horeysa. Haddii markaas cilad weyn aysan jirin, waa alxamdulillah, waa sida khayrka ah oo la rabno. Haddii laakiin ay maalan kuu dhuumato cilad weyn oo maalan hadda beerka oo kale waa mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan, qofka hadduu ka xanuunsado ay macnaha dhibaato gaarsiinayso jirkiisa oo dhan, khatarna ay tahay inuu qofkii u geeriyoon karo. Marka beerku ciladahaas aan ka soo sheekeynay, qofka haddaad isku aragtaba waxaa muhiim ah inaad dhakhtar hore kala xiriirtid, aadna ogaatid in cilada beerka ka jirta inay sidaa tahay sax inaysan ahayn.
aad baan arrintaas u xoojinaynaa barnaamijkii maanta oo aan uga hadalnay mowduucaas aad muhiimka u ah waxaan rabaa inaan idinku sii dheeraan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa aad ayaad u mahadsantihiin meelaha kala duwan aad nagala socotaanna waxay noo tahay dhiirigelin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.